Kismaayo 20 Oktoobar 2025 madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray xarunta dhexe ee hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland ee NISA oo laga hirgeliyay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha waxa uu munaasabadda ku wehelinayay wasiirka amniga gudaha Mudane Yuusuf Xuseen Cusmaan, agaasimaha hay'adda NISA Mudane Maxamed Axmed Samriye iyo taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland Generaal Ismaaciil Saxardiid. madaxweynaha ayaa kormeeray qaybo kala duwan ee xarunta cusub taasoo si casri ah loo dhisay isla markaana lagu fuliyay kharash ka yimid canshuurta shacabka reer Jubbaland, taasoo muujinaysa sida dowladda ay uga go'an tahay u adeegida shacabkeeda iyo kheyraadka gudaha iyo daahfurka maamulka. madaxweynaha Jubbaland ayaa ammaanay shaqada baaxadda leh ee ay hayaan howlwadeennada hay'adda NISA kuwaas oo habeen iyo maalin u taagan ilaalinta amniga iyo xasiloonida Jubbaland, iyagoo xusay in ay NISA tahay mid ka mid ah hay'adda amniga ahaan ugu faca-weyn Geeska Afrika. Mudane Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha Jubbaland ayaa xusay in shaqada NISA ay ka turjumaysay dadaal iyo isbeddel muuqda oo dowladdu ay gaadhay